بسم الله الرحمن الرحيم. انت المدلة ونحريست انت حنوس إلى عافية وحمولاتك لبنات الخير إلى سي آمين. ما انت عرف بين دلاتن سديد بيشي اللي بيتبنات كنا أفر بقل أفر دوكو بيغان أفريتون بيشي اللي حاد لذا كنا واتلحد عرف الله قضبنا وحالله قضب كسابسان هشيس دقدقو وفتي وقاري نو دلشد كوبيغان تاي دونالد ترامب iyo wafdi qadar oo gaaray Tehran soo magaranaysa oo ku soo saxiixo dagaalkan lagu soo gabagabeeyo qodobkood hadiyada dhalashada sideetamaad maxaa Trump ugu degdegsiiyey saxiixa heshiiska maxayse Iiraan ugu shaki qabtaa iyadoo dunida sugaysa in si rasmi ah lagu dhawaaqo heshiis u dhexeeya Mareykanka iyo Tehran Mareykanka iyo Iiraan oo soo afjari karo bilooyin dagaal ee xiisad ka jirto bariga dhexe waqtiga saxiixa heshiiska laftiisa ayaa noqday goob cusub oo muran siyaasadeed madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ku adkeysanayaa in heshiiska la saxiixo maanta oo Axad ah 14 Juun taasoo ku beegan dhalashadiisii sideetanaad falanqeyl badan ayaa aaminsan in tani ay waafaqsan tahay habkiisii siyaasadeed ee guulaha weyn ugu xiro magaciisa iyo sumcadiisa siyaasadeed dhanka kale Iiraan waxay u muuqataa inay doonayso inay ka hor istaagto Trump inuu helo faa'iidadaasi astaan ahaan muhiim u ah mas-uuliyiin Iiraani ah ayaa si cad ugu shakiyay in heshiiska laga saxiixi karo waqtigii Trump sheegay taasoo muran waqtigaasi saxiixa ka dhigtay arrin ka weyn habraaca diblomaasiyadda una beddeshay loolan ku saabsan sumcad iyo warbaahin inkastoo uu jiro khilaaf ku saabsan goorta la saxiixayo haddana waxaa sii kordhaya calaamadaha muujinaya in labada dhinac ay ku dhow yihiin heshiis horseedi karo dhammaadka dagaalka bilowday bishii February khilaafka waqtiga Trump iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif ayaa sheegay in heshiiska la filayo in la saxiixo Axadda Shehbaz Sharif wuxuu sheegay in Mareykanka iyo Iiraan ay gaareen qaab dhismeed heshiis nabadeed isla markaana Pakistan ay ka qaybgeli doonto munaasabadda saxiixa oo online ah iyadoo wada hadallada farsamo ay xigi doonaan toddobaadada soo socda si kastaba ha ahaatee Iiraan ayaa si degdeg ah u qaboojisay rajadaasi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Ismaaciil Baqaaya ayaa sheegay in waqtiga saxiixa aan weli si rasmi ah loo go'aamin isla markaana hadalka sheegaya in heshiis Axadda dhacaya uu yahay mid degdeg loo sheegay wuxuu intaasi ku daray in heshiiska la gaari karo maalmaha soo socda balse loo baahan yahay taxaddar maadaama dhinac kale uu weli muujinayo labalabeyn warbaahinta Iiraan qaarkood ayaa ku doodaysa in Trump uu doonayo in heshiiska loo saxiixo maalinta dhalashadiisii si uu ugu bandhigo guulo siyaasadeed oo shakhsi ahaan isaga lagu xuso arrimaha farsamo iyo amni muranka waqtiga saxiixuna kuma koobna siyaasadda oo keliya waxaa sidoo kale jiro caqabado amni iyo jadwal shaqo oo ka dhex jira maamulka Mareykanka warar ayaa sheegaya in saxiixa fogaan aragga online loo doortay sababo la xiriira jadwalka Trump madaxweyne ku-xigeenka DJ Vance nidaamka amniga Mareykanka wuxuu caadi ahaan ka hortagayaa in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa isla mar dibadda u maqnaadaan dalka iyadoo Trump uu qorsheynayo inuu safro Faransa si uu uga qayb galo shirka Group of Seven waxaa adkaatay
France uu safar kale ku tago Yurub isla waqtigaasi. Waxyaabaha heshiiska ku jiro sida ay sheegayaan ilo ku dhow wadahadallada dib loo furi doono marinka Strait Hormuz, waxaa uu yareyn doonaa cunaqabataynta iyo xanibaadda saaran dekedda Iran. Waxaa si tartiib ah loo sii dayn doonaa hantida Iran ee la xiray. Waxaa la fududeyn doonaa dhoofinta shidaalka Iran. Arrinta barnaamijka nukleerka Iran ayaa sii ahaan doonta mowduuc wadahadal kale oo socon doona qiyaastii 60 maalmood. Mareykanka wuxuu sheegay in hadafka ugu dambeeya uu yahay in la xadido ama la burburiyo awoodda nukleerka Iran, halka Iran ay ku adkeysanayso xaqeeda ay u leedahay barnaamijka nukleerka oo nabadeed. Gunaanad, inkasta oo weli jiro muran ku saabsan waqtiga lagu dhawaaqayo heshiiska, haddana heshiiska laftiisa wuxuu u muuqdaa inuu aad ugu dhow yahay in la dhammaystiro. Si kastaba ha ahaatee, loolanka ku saabsan dhinaca weli doona guusha astaan ahaan iyo siyaasadeed ay weli socoto. Trump wuxuu doonayaa in maalinta saxiix lagu xuso guul taariikhi oo magaciisa la xiriira, halka Iran ay isku dayeyso inay ka hortagto in arrintaas loo arko guul shaqsiyeed oo Trump gaaray. Sidaas darteed, waqtiga saxiix laftiisa wuxuu noqday qayb ka mid ah wadaxaajoodka, halka uu ka ahaan lahaa oo keliya habdhac. Qodobkaas ahaa qodobka koowaad. Qodobka labaadna wuxuu ku saabsan yahay in wafdi Qatar uu gaaray Tehran si loo dhammaystiro heshiiska joojinta dagaalka. Wakaaladda wararka Iran ee Tasniim ayaa Axaddii sheegtay in wafdi ka socda Qatar oo maanta uu wadahadallo la yeeshay saraakiil sare oo Iraani ah magaalada Tehran, taasoo qayb ka ah dadaallada dhexdhexaadinta u dhexeeya Iran iyo Mareykanka. Tasniim ayaa sheegtay in wafdiga Qatar uu Tehran u yimid si uu ugala hadlo horumaradii ugu dambeeyay ee geedi socodka diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda. Sidoo kale, wakaaladda Reuters ayaa kasoo xigtay ilo xog ogaal ah oo wadaxaajoodkaasi Qataari ah saaka gaareen Tehran si ay uga qayb qaataan dadaallada lagu dhammaystirayo heshiiska lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iran. Hogaamiyaasha Mareykanka iyo Bakistan ayaa la filayaa inay Axaddii la saxiixdo heshiis hordhaca Memorandum of Understanding oo lagu soo afjarayo dagaalka socday in ka badan 3 bilood, balse Iran ayaa muujisay shaki ku saabsan waqtiga saxiixa. Wakaaladda Fars ayaa sheegtay in go'aanka kama dambeynta ee Tehran uu weli dib u eegis ku jiro, iyadoo khubarada iyo go'aan qaadashada Iran ay sii baarayaan dhinacyada siyaasadeed, sharci iyo farsamo ee heshiiska. Ra'iisul Wasaaraha Bakistan Shehbaz Sharif ayaa Sabtidii ku qoray bartiisa X in heshiiska nabadda ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iran uu ku dhow yahay sidii hore, isla markaana la filayo in la dhammaystiro 24 saac gudahood. Dhankiisa, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in heshiiska la saxiixi doono Axadda, isla markaana marin biyoodka Strait of Hormuz dib loo furi doono dhammaan maraakiibta marka heshiisku dhaqan galo. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa hore u sheegay inay jirto suurtagalnimo in heshiis si dijitaal ah loo saxiixo maalmaha soo socda. Qodobada heshiiska, si ay tilmaamayaan xogaha la helay, waxaa jiri doona xabad joojin soconaysa 60 maalmood. Waxaa dib loo furi doonaa marinka Hormuz ee maraakiibta caalamiga maraan. Dhaqdhaqaaqa maraakiibta ayaa dib ugu noqon doona
heerkii caadiga ahaa. Mareykanka wuxuu fududeyn doonaa xayiraadda saaran dhoofinta shidaalka Iiraan waxaa loo ogolaan doonaa inay hesho dakhli kasoo gala shidaalka. Fududeynta dheeraadka ah waxay ku xiran tahay horumarka laga gaaro wadaxaajoodka ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Iiraan iyo arrimaha kale oo muran ka taagan yahay. Tani markii xabad joojinta hadda jirta la bilaabay 8 Abriil, Tehran iyo Washington waxay wadeen wadaxaajood lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka. Inta lagu jiray muddadaasi, Mareykanka wuxuu xanibaad saaray dekedda Iiraan, halka Iiraan ku jawaabtay iyadoo xaddiday maritaanka maraakiibta ee marinka Hormuz. Waxaa weli jiro cabsi laga qabo in xabad joojintu burburto oo dagaalka dib u qarxo, taasoo saameyn ku yeelan karta qiimaha tamarta iyo sicir bararka caalamka. Walaal waxaan rabaa labada qodob inaan soo wadaago wixii ku soo kordha labadan qodob oo warkeena dambe. Waan salaamay. Assalaamu calaykum.